kulanti wacan marka la khiyaartana daawanaysa ay meel kastoo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada warka oo faahfaahsan dawladda Puntland ayaa shaqaalaha rayidka u tababaraysa horumarinta shaqada dawliga ah 180 qof oo ka tirsan shaqaalaha rayidka ah ee dawladda u shaqeeya ayaa garowe tababar looga furay tababarkaasi ayaa qayb ka ah mashruuca tayeynta shaqaalaha ee isla wadaan dawladda Puntland iyo bangiga adduunka wariyahana Khadro Maxamed Faarax ayaa ka waramaysa 6 qaybood oo kamid ah shaqaalaha rayidka ah ee waxyaha kala duwan u qaabilsan hay'adaha dawladda Puntland ayaa qaadan doona casharo la xiriira shaqooyinka ay qaabilsan yihiin tababarkan oo qayb ka ah mashruuca tayeynta shaqaalaha dawladda waxa bixinaysa dawladda Puntland wuxuuna socon doonaa muddo 10 bari ah Burhan Abdullahi oo ku hadlayay mashruuca tayeynta shaqaalaha ayaa faahfaahiyay ujeedka tababarka shaqaalaha rayidka oo ka kooban 180 qof maanta waxaan u fadhinaa daafurka tababarkii ugu horeeyay ee ay ka faa'iideysanayaan shaqaalaha dawladda Puntland 6 qaybood oo kamid ah key cross cutting government functions 6 qaybood oo ah maamulka maaliyadda shaqaalaha iibka cilmiga ICT-ga qiimaynta iyo dabagalka iyo qorsheynta mashruuca component kamid ah waxa weeye awoodeynta shaqaalaha dawladda hadii ilaahay ku idmahayo iyada oo la buuxinayo gaabkooda meelaha ay uga baahan yihiin tababarada in loo xoojiyo tababarka aad qaadan doontaan wuxuu ku salaysan yahay qiimayn la sameeyay bishii Abriil natiijadii ka soo baxday ayaa la rabaa maanta in la bixiyo hadii alla idmo mas'uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo xubno kale oo dawladda kamid ah madaxda jaamacadda BOC oo iyadu tababarkan bixinaysa ayaa sheegay inuu wax weyn ka bedelayo qaabka shaqo ee hay'adaha dawladda tababarkan sidoo kalena shaqaalaha waxay ku booriyeen inay ka faa'iideystaan casharada la siinayo waxaan runtii aan idinku boorinayaa shaqaalaha maaha seminar maaha workshopna maaha laakiin waa 10 casho oo sanad loogu talagalay waxaan filayaa waxa ku jira ee la soo diyaariyay waa 10 casho oo sanad loogu talagalay la kabaasatiya sanad macnaheedu waxaan taa u leeyahay in aydan yaraysan oo oran oo iska seminar yar maaha seminar yar asbuuca uu socon doono wax badan na waxa la idinka rabaa idinka timaado wax badan na waxa la rabaa inay dadka tababarayaasha oo maanta inala jooga ay ka yimaadaan haddii aynu intaas ku helno waxa expectation ku yahay in aad ka heshiin halka knowledge aqoonta aad heshiin marka khibradda aad heshiin iyo tii hore u hayseen waxaynu u baahanahay inaynu dib ugu celino qof walba xafiiska mas'uulka ah waan filayaa in ujeedooyinkii in badan la helay maxaa yeelay barnaamijkan hadda aad ku jirtaan tababarka wuxuu ku soo aadamay marxalad fiican baan isleeyahay sababtu waxay tahay waxa aad tagteen fiilkii waxa aad tagteen wasaaraddii waad isqiimaysa marka wasiir dawlaha wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah oo daafuray aqoon isweydaarsiga ayaa shaqaalaha ka codsaday inay waxa ay bartaan ku celiyaan goobihii ay ka yimaadeen si shaqada looga dareemo casharada muhiimka ah ee ay ku qaadan doonaan halka tababarku uu ka soconayo shaqadan waxay ku timid reform dawladda Puntland inay samayso reform shaqaale dawladda waxay ku dhisan tahay waa shaqaalaha technocrat waxa la yiraahdo that's shaqada dadka qabto waa dadkaas haddii ay lahayn dawladda technocrat niman aqoon u la shaqada ay hayaan ama xirfad aan u lahayn dawladda ma socon karto Qadar Maxamed Puntland TV